جمال كور مرنا سؤال شكوبان وما سنتين سؤال في عن سؤال شكو سابسن حيبها أنا ما هالناشنال كحمدينا يا دكتور كي وزارته لكن سجود حابت إنه الله سعته ماله بدن وبعاد بدن كسرق بدن تولين بدن وقري أنت سؤالين رنتي الله حماد الله وسيابد مركان كفير كو وأوجنا هاي مركا مالها قاردها أمودمدا قوي وكبدنية بورها برف قالها هاي برفكي وكمل مو سبتك عملها درادد وحي كانس مركا عيني بدي كعضو بدي مركا كعضانا وحي كسوف تحي صاحبي دجانا كل واحد وحيالها هجومي مثل مركا تدك قبتين وحكمله إن لو بيرو درتلوي قان مانغروفسك marka mashruuc waxaan ka warqabnaa hadda iska bilow ah oo hindisihii hore ku jira in lagu beero xeebaha Soomaaliya oo dhan mangrove-ka lagu beero si loo at least ugu yaraan loo ilaaliyo in badda ku soo biyaha badda ka imaanaya ciidda soo qaadan ciidina baadkeen saad meel ku qaado bas loo hakiyo ugu yaraan ko labo early warning system waxa sheegtay meelaha qaar kood waa ka jira laakiin badda aanu kama warhayo in badda ka jiro hadda لكن واحد جرى واحد شرع اللي عنده السكور راعي هالشيء سوالير early warning for all أو UN كو هذا وضعن وعالم كورنا كغيب قادنا الصومالي أنا لو سجدي لكن واحد صح كوريا طلب إنه يشو ساداش هودا ومدرسان meteorological services كمت وحلو يقان ومرنا هذا الشغلنا كسعته تاس قريب كم إذا لقينا كرا early warning كا بضح هذا الله يدمه وقدامين أرنت شدال كسر شكتي ولا قودي كرا شا ولا صوصار كرا لكن وحكوريا شرعي ديجان كلا لنا هذه مركب كا وحقودها يا ساشكتي وسليدة خلد يركضوا حلايا ماشي عشان أنت سو كنا كيلومتر أو البداية ده ولا كل مسنا يساس بابان ما غنى الله سعوتها ما عنده مركب واحد جري يمن يالي أو حالة السحميد أو سليد بدن وذي مركب كاس هديان لقى جاري الحين حبت الصومالي يمن راح يصورنا وحين نقولنا حتى الأمريكا marka wasaaradda iyo dadka ku hawlay arrimaha deegaanka wax kula talin lahaa ku codsan lahayn intaan wax loo qoday marka hore sharciga loo diyaariyo meel kasta wax laga sameeyo waxa la yiraahdaa environmental assessment impact iyo kan hala sameeyo laakiin tan waa ka sii fogta waan ka sii adagtay marka baltaan xoog la saaro maasanta دكتور خالد ويا بسم الله horta 300 milyan waxay ahayd lacagtii Soomaaliya ay heshay sanadkii 2022 marka climate finance lacagteeda ama 300 milyan hadii aad fiiriso analysis ka aanu ku sameynay yani climate finance way ku magacawnayd laakiin entirely hadaad fiiriso mashaariicda waxaan u maleynayaa 40 iyo dhowr mashruuc bay ahaayeen 32 mashruuc oo kamid ah 40 iyo labadaas aduu 8 intaan ka ahayn 32 mashruuc oo kamid ah xitaa target iyo objective cad ma aysan lahayn oo la dhihi kara climate bay ahaayeen marka xitaa hadii waa meesha waxyaabaha markaad adigu qofkii tiisa daryeela tu kale ku dara Soomaalidu ay tiraahday حتى مشاريع عن climate هاي با Soomaaliya loo geliyaa inay climate tahay inta badan marka taa horta waxay ahayd 2022 sideed mashruuc baana focus ka ahayd midan kale ee 100 milyan ah waa 5 sano meelahaas mashruuc socon doono FAO baa wadi doonto waxaan ka warqabaa inay wasaaradda environment-ga iyo wasaaradda beeruhu ay la leeyihiin heshiis FAO qaabka fulinta mashruucaas laakiin waxa soo dhan wax ka duwan baa jiro mashaariic tira badan baa socoto oo mataqaana oo climate ah ifad baa wado mashruucan u maleynayo inay 42 milyan iyo wax la mid ah inay ahayd baan filaya adaptation fund barnaamij oo UNEP ay wado oo nature based solution loogu magac daray baa jira marka waxa soo dhan hadii aysan jirin meel coordinate garayso og oo la socoto oo a whole of government approach ka qaabkii loo approach gareyn lahaa iyo impact-ga cid laga la xisaabtami lahaa aysan jirin waa meelaan iska joogi doona waligeen yaaleen marka inta aanan ka fikirin
muhiimadda iyada waxaa waaye inta badan annaga hadda aan samayno lacag hal raadiyo climate finance laakiin waxaad moodaa inaysan annaga diyaar noo ahayn marka ugu horeyso what is maxaan horta annaga visionkayaga iyo waxaan rabnay iyo annaga iyo ma noo cad yihiin hadda NDC-ga aan samaynayno kii hore si waa cukaasho isagii xiganayay hadaayo 55 bilyan oo dollar bay ahayd mideeda kale haddii waxaan adiga aad samaysanayso oo plankan iyo qorshahan qaran aad samaynayso haddii budgetka dowladda uusan qayb ka ahayn cid fiirinaysaa ma jirto 55 bilyan waa ka soo dhinay 16 bilyan baan keenay NDC 3-gana waxaan rabnaa inaan ku soo koobno xitaa bilyan iyo 2 bilyan inaan gaari doono ma u malaynayo sababta waxaan rabnaa implementable iyo investable wax adduunka markaan hordhigno noqonayo realistic way waxbaan ka qaban karaa 900 milyan 800 milyan 700 milyan haddaan keeno 5 sano ama 10 sano indhaysigu waa 2025 ilaa 2035 10 sano 1 bilyan ama 2 bilyan baan u baahanahay haddaan dhahno kala jajabino federal member stateska iyo federal government institutionska iyo aan u qaybino waa implementable waaye oo qorshe cad aan la nimaano laakiin waxaa asalka ah labadaas bilyan ee la imaan doono dawladda budgetkeeda maxay kaga dari doontaa marka ay caddahay waxay dawladdu ku darayso way ka sahlanaanaysaa taas intaasaan uga baxayaa naabka iyo NDC-ga labadaba way qoran yihiin wayna ku cad yihiin ma garanaysaa coastal area-da for example shantii concept aan saakay jeedinayay mid ka mid ah waxay ahayd fishery and blue economy mideeda kale adiga hadda sida aad u aragto costigu inayba iyadu ugu dhiban badan tahay anigu waxaan qabaaba fikir haddii maanta la weydiiyo food security systemka Soomaaliya coastalka haba loo jeediyaba oo rural area-dan ha laga tago marka meel dihin bay noo tahay waa mahadsantahay doctor hal qodob baan siinaa wasiirka waxaan ku dar lahaa Ustaad Khaliif hadalkiisa lacagaha 300 milyan ha ahaato oo ku baxday the largest slice goes to emergency sort marka waa fahmi kartiin humanitarian lacagta aad badankeed xataa waxa arkaysaa lacag ku baxday reproductive health ma fahamti HIV AIDS waxaas ma fahamti marka qof lacag soo arka meel taalo wax qaadanaya male wuxuu leeyahay climate ku adjust gareysana laakiin maxaan rabaa inaan soo noqdo mar waxaan leenahay lacag la'aan hayso marna xaaladda dawladda ka jirto mar dhaweyd muddo laga joogo isbuuc oo 10 bari wasaaradaha istiidada macal gobolka Banaadir waxay xiriirka u jireen wasaaradda caafimaadka federaalka way 72 milyan lacag dhacday waa dhacday mataqaana 48 milyan meel ilaa 8 milyan oo anaka aan lahayn loo keed gareey inta la murmaayay BIU maya aniga advisor ii qor maya hebel u qor maya ogaadeen ka dhig maya xareen ka dhig inta isku haysanay 48 milyan oo ki covid lacagta covid ka imaatay 28 milyan 7 milyan horta naga dhacday kuwa kale aan sheegayna hoos waa jiraan hadhow marka qofka oo aad dhays lacag isii 100 milyan isii qofka ma ogdahay Netflix film ku jira fool me once you can't fool ma ogdahay 7 milyan lacag isii wartii caafimaad lagu sii islaanta umar raacayso anuga oo meed la dhaay lagu sii isticmaal weysiya ku siina marka baasharka inta iska dhaafno sidii rajaaraha sheegay bin aadi marka noqono lacag la siina ma santi